kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka dad ay tiradoodu badan tahay ayaa ku dhintay weeraro 10 kor u dhaafaya oo lagu qaaday magaalada Muqdisho labadii toddobaad ee ina dhaafay weeraradii dhacay ayaa isugu jira kuwo walxaha qarxa baabuurta la isugu dhajiyo iyo weerar toos ah oo baabuur bambooyin laga soo buuxinayo lagu duqeynayo dhismayaasha bartilmaameedka ah weeraradan ayaa sababa dhimasho iyo burbur hanti waxaa kaloo ay saameeyaan ardayda iskuulada iyo ganacsiga hadda uun bilowga ah barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa waxa nuglaanta dhinaca amniga ah hadda sii kordhiyey iyo sida waxa dhacaya ay u saameeyaan hannaanka waxbarasho iyo ganacsi ee dalka barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo madaxa daraasaadka Hiiraal ee magaalada Muqdisho waxaa isna barnaamijka qayb ka Professor Liibaan Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee intaanaan barnaamijka gudagelin aynu dhageysano warbixin uu wariyaha VOA-da Haruun Macruuf ka diyaariyey xaaladda amniga iyo qaraxyadii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ka dhacay maalmahan mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dawladda Soomaaliya ayaa cambaaraysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ururka al-shabaabna waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi 15 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi tiradaasi oo leeg intii ku dhimatay weerarka isugu jiray qaraxyada iyo maleeshiyaadka hubeysan ee weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud maalintii Sabtidii qaraxyadan waxay ka dhigayaan qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho 8 qarax oo dhacay 8 maalmood ee u dambeysay maalintii Khamiistii ee 22 bishan waxa qarax lagu dilay nin injineer ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Kaariye maalintii Sabtida ee 23 bishan al-shabaab waxay weerareen dhismaha wasaaradaha shaqada iyo howlaha guud waxaana ku dhintay 15 qof oo ku jiro wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo arrimaha bulshada Saqar Ibraahim Cabdalla isla maalintaas laba qarax oo kale ayaa ka dhacay Ex Control magaalada Muqdisho waxaana ku dhintay 2 qof 25 bishan waxa qarax baabuur lagu dilay Maxamed Jeylaani oo ka tirsanaa jaamacadda Simad 26 bishan waxa qarax lagu dilay wiil 14 jir ah meel u dhow iskooyska kilomitir 4 fiidnimadii 27 bishan Maarsana qarax ka dhacay deegaanka laba dhagax ee degmada Wardhiigle waxa ku dhintay 1 qof waxaana ka badbaaday mas'uuliyiin ka tirsan booliiska gobolka Banaadir sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga ah ugu dambeyntiina maalintii shalay ayaa qarax baabuur waxa ku dhintay 15 qof jidka Maka al-Mukarrama haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan dhacaya miyay ka duwan yihiin kuwii hore u dhici jiray su'aashaasi waxaan hordhigay agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi runtii aad bay uga duwan yihiin sababtoo awal markii 3 bilood qarax la waayo baan walwali jirnay oo dhijirna hadda soo kala yihiin hadda waa maalin daaf waa maalin kasta oo maalintii waa 2 goor waxyaabo badan baan keenayo sababta ay noqon kartaa mid waxay noqon kartaa in runtii culayska laftigooda uu ku batay ay nagu carteen daroonska Mareykanka iyo hadda Soomaalidu inaysa hawl badan gaarsiin madaxweynaha khudbadii askarta u jeediyay sheegay laakiin daroonskaas iyo inay maaragtay magaalada ku soo bateen oo ay ku carteen maaragtay dadka shacabka iyo maatada iyo masaakiinta waxaa dhici karta inay tawartoodii soo tartay iyo dadkii qaraxyada u sameynayay iyo baaruudii ay helayeen oo waxaan u qarsanaysay iyo TNT iyo suntii iyo wixii inay maaragtay logistic u fiicnaaday oo maaragtay inteedii hore ay kasoo tawarbateen baa loo fasiran karaa waxaa kaloo loo fasiran karaa karti xumo dadkii laga sugayay inay amniga sugaan oo dadkan masaakiinta oo maatada oo madaxa leh xildhibaanada oo injineerada oo dawladda oo shacab leh oo culamo leh dhigooda qobanaya dadkii laga rabay shaqada aan markii hore macnaha u habeysnayn oo khibradii iyo skiilkii aan lahayn ama aan kaashiyo u hayn oo wax kale ku mashquulsan marka runtii arrinta dadkan dhigooda qobanayo arrin la aqbali karayna maaha sababa macnaha karti xumo leh usoo jeedid la-aan leh nimankii soo tamaraystay ayagoo caartay leh saarta u dhig laakiin kulligood mid la aqbali kara ma jirto dalku insaan kuma sii jiri karo dadkan insaan kuma sii jiri karaan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaalayso sugidda amniga waxayna codsatay inay dadweynuhu la shaqeeyaan ciidamada amniga aadan Isaaq Cali waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan VOA laamaha ammaanka barnaba kama jiifaan waxayna ku dadaalayaan mar walba waxyaabaha caynkan sidii ula falgali lahaayeen qaraxyadan dadka ehelka u ah sanad xarbiga bartay markii ay ka hadlayaan ama dadka militariga ku takhasusay dagaalka qaraxyada waa mid kamid ah dagaalada ugu dhibka badan in lala falgalo haddaanan haysan shacabka Soomaaliyeed
kaalintooda iyo garab istaagooda way adag tahay mar walba in si fudud lagu soo afjaro. laamaha ammaankana dadaal badan ayay ku bixinayaan mar walba sidii ay u istaagi lahaayeen, ayna sidaa aragtaanba ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed ay isku dhigayaan si ay u badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed. laakiin mudane wasiir ku-xigeen, hadda markay dadka maqlaan oo tiraahdo ciidamada ammaanka howlay hayaan, markiiba waxaa qofka kusoo dhacaysa inuu yidhaahdo haddii howli socoto sidee qaraxuna joogto u noqday. hawsha hay-adaha amniga ay qabtaan waa howl la dareemo, tan ugu fudud oo la arki kara waayo, oo ah in qaraxyadan joogtada noqdo. maalinta waxaa dhacda mararka qaar in ka badan hal qarax inuu dhaco. marka ma waxaa leedahay magaalada saasaa hay-ada ammaan oo ka shaqeeya ay jiraan? waxaa jira, waxaa hadda muuqda ee shacabka Soomaaliyeed xaqiiqdii horta marnaba ma noqonaysa in shacab Soomaaliyeed dhiiggiisa daato aan sababayno, laakiin waxaa jira xaqiiqada aan hayna ayaa waxa ay tahay laamaha ammaanka inta qaraxa ay soo qabtaan ayaa ka badan inta ay maalinta sameeyaan cadowga ay shacabka Soomaaliyeed ku dhagrayaan. dowladda Soomaaliya waxay kaloo sheegtay inaysan ka hurdin la dagaalanka al-shabaab, waxayna ku dooday in duqaymaha diyaaradaha Maraykanka iyo howlgallada ciidamada Soomaalidu ay wiiqayaan al-shabaab. aadan isaaq cali, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, mar kale. duqaymaha Maraykanka waxaa garab socda dagaal foolka fool ay la galayaan ciidamada danab iyo gaashaan ay ugu geysanayaan cadowga meelaha ay joogaan. kii u dambeysay oo ahayd beriire meeshii ay dadka ku xukumi jireen maxkamadoodii loogu tagayo iyo meelo badan oo aan loo soo wadaagna shacabka Soomaaliyeed. xarumaha ay iyaga joogaan ayay ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliyeed ay ugu tagaan oo ay kusoo dhameeyaan oo kusoo xasuuqaan iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamka. laakiin cabdirashiid khaliif xaashi, agaasimaha macadka Heritage, ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa jawaabta dowladda Soomaaliya iyo sida ay u maamushay xaaladda amniga ee xilligan jirta. hakarasho hadda inay jirto oo raalli ka yihiin waxaan dhacaya dad badan oo madaxa hadda ma dhihi karno raalliga ka yihiin runtii. dhinaca kalena in macnaha halkii wado dowladda ay marna ay goor ku aadaysay marna waxtooyada u aadaysay inuu noqdo killing field ama meel laisku xasuuqahayana kolba dad baa u fududeynahaya oo baabuurtan soogay kusoo dhaafayaan oo lacagtan dad baa siinaya oo baaruudan dad baa ka gadahaya oo dad baa ka warqaba oo dad baa og. dowladdaana waxay u baahan tahay waxaa la yidhaahdo regime security, ama dowladda danaheeda iyo amnigeeda iyo soo noqoshadeeda hadday ku mashquulaan state security ma sugi karaan. state security caajifadna ma galo. marka dalkan wuxuu u baahan yahay state security iyo amniga qaranka in lagu mashquulee xukuumad amniga xukuumad iyo waaritaankeeda iyo soo noqoshadeeda dad ku mashquulsan amni kama shaqayn karaan. dadkooda dhimanayaan waxaan kula talin lahaa inay suu gareeyaan. dastuurka 60 waa ku qorneed, kanada ku qoran tahay. madaxweynaha lama suu garayn karo, isagu maxaa la yidhahdaa mas-uuliyadda noocaas waxay saaran tahay xukuumadda in la suu gareeyo, maxkamadaha lala tago, markii qofka dhintada lala tago. sababta negligency iyo dadkan inay macnaha maxaa la yidhahdaa dadaan aan shaqadii aqoon loo diray darteed u dhintaan, ama maaragtay maxaa la dhahaa ahmiyadii la gelin lahaa amniga ay u dhintaan, waa in lagu suu gareeyo maxkamadaha laga aado waayo. su-aal ay isweydiinayaan khubarada dhinaca amniga ayaa ah sababta ay dowladda Soomaaliya ula xisaabtami weysay madaxda amniga. wasiir ku-xigeenka warfaafinta aadan isaaq cali waxa uu leeyahay iskuma xirna arrimahaasi. qof in xilka laga qaadana ma xalinayso dhibaatada amni darrada. haddii maanta la yidhaahdo qarax dhacay qof aan xil uga qaadno shacabka Soomaaliyeed waxaan u malaynaya dhibaatay noqonaysaa maalin walbana. waxaan kusii dhex jirayna dhibaatadan intana kama gudbayna. waxaan u baahanaa inaan isgarab istaagno. mas-uuliyadda amnigana waa mas-uuliyad wadareed. mas-uuliyad wadareed bay mar noqotona waa isgarab buuxin. waa inaan isgarab buuxinaa ana u midownaa ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada wardooxatada. 2 sano ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wacad ku maray inuu ka guuleysanayo al-shabaab 2 sano gudahood. waxaa isweydiintu tahay halkee ayay dowladdu uga dhaqaaqi doontaa kala baydhka ay hadda taagan tahay. haatanna qaybihii kale ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. aad baad u mahadsan tahay Haaruun. aynu dib ugu noqonno barnaamijkeennii oo ay maanta sidii aan idiin sheegay marti igu yihiin xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo madaxa macadka daraasaadka Hilaala magaalada Muqdisho, professor Liibaan Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo xubin ka ah baarlamaanka Soomaaliya. xuseen macalin ayaan ugu horreyn weydiiyey qiimayntiisa ku aadan xaaladaha hadda jira. waa mahadsan tahay Sandheere iyo akhyaarta kaleeto, xildhibaanka iyo professorka. waxaan isleeyahay toddobaadkan waa toddobaad oo aan xoogaa amni xumadii guud ee Soomaaliya iska jiri jirtay, gaar ahaan magaalada Muqdisho ka yara duwan, oo
ay dhacdooyinkii xoogaa kala dheeraan jiray oo maaragtay inay noqotay hadda in ay daily maalin joogtaa u dhacdo, weliba maalmo qaarkoodna ay dhowr qarax oo kala duwan ay magaalada ka dhacaan. marka waa phenomena cusub. usbuucan keliya ma actually inta dailyga waa 12 maalmood oo lasoo dhaafay ayaa maalin kasta waxaa dhacaya qarax ama 2 ama 3, maalinna 5 dhacday. marka waa arrin ku cusub magaalada Muqdisho oo u baahan in dadku ay iska wareystaan haddii shacab iyo dawlad la yahayba, iyo guud ahaan qorshayaashii magaaladan waxa ay shabaab u awoodeen in ay maalin kasta ay operation noocaasa oon ogahay inta ogaalkayga aqoontayda ah operation walba in ay qaadato in la abaabulo waqti dheer, dad badanna ay ka shaqeeyaan operation kasta oo dhacaya. waan gartay. xildhibaan daahir amiin jesow, waxaad ka mid tahay guddiga amniga ee golaha baarlamaanka aqalka hoose. markaad eegto muddada iminka 12 cisho ah ee uu xuseen sheegay ee ay wax dhacayeen qarax amaba hal ama ka badan ay dhacayeen, guddiga amniga qaranku maxaad ka wada hadasheen, maxaad ku sifayseen inay tahay? waa mahadsantahay xuseen, waa mahadsan yahay profesorkaba salaamaya dhammaan jamaacada ku jirta meesha keliya xuseen iyo profesorka iyo adiga. waa sax waaye in wiigan wiigiisa muxuu ahaay qaraxyo badan ay dhaceen 12 casho soo dhaafinayo qaraxyadaas sidaas si xuseen u sheegay ay dhacayeen. nasiib darro weyn waaye runtii. maalin walba shacab Soomaaliyeed uu qarax ku dhinto waa wax laga xumaada. qof kasta oo waxgarad oo Soomaali ah ama dawladda ka tirsanaado ama muxuu ahaay golaha ka tirsanaado ama meel kale ka tirsanaado ama shacab oo fahamkiisa oo gaarsiisay inuu xadhiminayo dad Soomaaliyeed ay yihiin aad baa looga wadasan yahay. intaa kadib nimankan qaraxyadu waxay soo badiyeen waxaa sabab u ah dhulkii miyiga ah ee ku dhimaanaysanayeen ayaa tilaabo ay qaadi kari laayihiin oo diyaarada kortaada oo garaacaya. dhammaan inta aniga hadda aan garanayo baysas ay lahaayeen oo ay wada faarijeen oo ku noolaan waayeen oo lagu garaacay, xataa meydkooda ay sigi waayeen ay kusoo qaadan waayeen ayaa buuxa. marka horena waa u sheegeen waxay yidhahdeen limana diila-aan ma noqon. waxay rabaan meelay ku gabaad ka dhigtaana shacabkii kusoo dhex gabadeen magaalooyinka si magaalooyinka galayaan. magaalada madaxda Muqdisho ay u tahay muxuu ahay maskax tahay ay galayaan. gobolada kale ee dalkana magaalooyinka waaweyn waa galaya, waa hubaal. marka in taxadir badan laga muujiyo oo sugitaankoodaas magaalada la hakiyo oo muxuu ahay jidooyinka ay kusoo galayeen magaalada aad xooga looga saaro ayaan qabaa in looga badbaadi karo. laakiin cadowgii baadiyaha ku raacdaysanaysa inta kugu soo gala beledkii farsamadiisana oo wato daraashi iyo dad hore uga shaqaynayna ay magaalada ka buuxaan, qarax magaalada dhexdeeda lagu sameeyo baadiyaha makeenadooda. marka taasaan qabaa. waan gartay. waan kusoo noqon doonaa anoo in badan kaa weydiinaya waxa ay u dhici weyday in magaalooyin kale oo aan ahayn Muqdisho ay sida Muqdisho ay uga socdaan ay wax uga dhacaan. hase yeeshee haddaan tago Dr. Liibaan, dabcan waxaan oo dhammi waxay keenayaan saameyn bulsho, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca ganacsiga iyo dhinaca nolosha dadka caadiga ah iyo dhinaca nafsiga intaba. marka haddaynu bal ku bilowno waxbarashada iyo sida ay qaraxyadii 12 maalmood ee u dambeeyey dhacayay ay u saameeyeen. runtii waa aad baad umahadsan tahay. waa iyo akhyaarta yani doodan ku wada jirta. runtii waxaan isleeyahay magaalada Muqdisho sida 12 maalmood la tilmaamay jawigu ka bedelnaa maalmihii hore ee Muqdisho mararka qaarkood waxay ka dhici jireen, laakiin waqtiyo kale fog ayay ahaayeen. arrintan marka waxay keentay runtii jawi argagax oo xagga ardada iyo waxbarashada iyo waxyaalo fara badan oo laba shayba isugu darsamay. markay wax dhacaan, qarax dhacaan oo dariiqyadii la xirayo oo zoonkii wax ka dhaceen ma ahayna zoonan badan ba la xirayo,
marka isku tallaabkii ardayda isku tallaabayeen oo jaamacadihii iyo iskuulaadkii iyo la aadayay xanibaad weyn ayaa ka jiraysa. taa iyada nafteeda waa saameyn ayay ku leedahay oo waktiyadaas oo mataqaanaa oo kale. waxay kaloo iyada saameyn ay ku leedahay marka aad fiiriso nafsiyaadka ardada waxbaranaya laakiin si kastoo duruuftu tahay way adkeysan jireen ardada, laakiin kolka isku soo noqnoqdaan aad bay yani dareen bay dareemayaan. yani ardada kamid ah oo aad yani ardada u dadaala ah weliba sanadaha ugu dambeeya ah yaa waxa ugu yiri waa markii ugu horeysay aan ku fakara buu yiri muqdisho maxaad adigii reerkiila igu sii joojiyey. yani waxa waa xoogaa dadkii waxay ku abuureysaa dhaawac oo nafsi ah ayay ku abuureysaa yani oo xoog badan ardadii xaggooda oo hadda ma sii dhamaysan doontaa waxbarashada masaan bay ku socon doontaa, waxay ku socotaa ritmi aad u badan. marka waxaan isleeyahay xagga waxbarashada iga weydiisay taabay tahay. ugu dambeyn dhinaca waxbarashada waxaan oran karaa dadka qaylaha sare wayba waxaa laga yaabaa inay dadku waaweyn iyo jaamacadaha iyo inay adkaystaan, laakiin ardadii yaryar ee iskuulaadka dhiganaya kolka ay qaraxyadan faraha badan ay maqlaan argagax. yani waxaan garanayaa arday iskuulaadka yaryar dhigta qaar argagaxaya, qaar yani salalaya oo habeenkii yani aad iyo aad wax trauma oo nafsiyan ay ku reebayso. inta aan aqaan iyo deriska iyo reerka igu hareereysana dareemaysaa keliya yani waxay ku reebayso. marka yani saameyn ballaaran bay leedahay runtii marka loo eego xagga waxbarashada. waan gartay. xuseen, waxaad ka shaqaysaa machad amaba aada madax ka tahay arrimaha amniga inta badan aada ula socda. weeraradan cusub ee hadda soo kordhay sida xildhibaan daahir amiin jesow uu sheegay, ma waxa weeyaan markii ururka al-shabaab iyo laga yaabo ururka daacish oo isna inuu aragtidaas oo kale uu qabo, markii lagu soo cadaadiyey dhulkii miyiga sida uu xildhibaanku sheegay dayuurado badan lagu weeraray, ay taasi keentay inay magaalada soo galaan howlahana ay ka fuliyaan. sidaa ma u aragtaan haddaad tihiin dadka ka shaqeeya la socodka arrimaha ururadaas? waa mahadsan tahay. xildhibaanku waxaan umalaynaya wuxuu akriyey qoraaladeena oo aan sanadkii hore markii aan qiimeyneynay dhacdooyinka dhacay oo guud ayaan analysiskeena conclusionkeena ayaan kusoo gabagabeynay in ay suuragal tahay maadaama cariiri laga saaray operationadii ay ka qaban jireen dhulalka miyiga ah oo ay ku weerari jireen amisom iyo ciidanka xooga fadhiyada ay ku leeyihiin dalkao dhan, gaar ahaan labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose, in ay u bedeli karaan sababaha in ay qaraxyada badiyeen. warbixintaasna dee waxaan yani aada u dhiraandhirinay ama u fiirinay sida ay isku saameyn karaan operationadooda iyo qaabka ay u bedelaan tactically. marka waa sax way jirtaa, laakiin inta iyada keliya ma aha. marka waa un waxay noqon kartaa factor kamida waxyaabaha yani ku qasbay in ay bombinka badiyaan. laakiin waxaa jira waxyaabo kaleeto oo aan ka macad ahaan aan haddana aan aada u dul istaagnay oo ah in ay awoodooda ama capabilityda qaraxyada ay isi soo tartarayaan. for example tayada qaraxa dhacaya oo aan garanaynay sanadihii horeeto iyo tayada qaraxa dhacaya waayadan dambeeto waxaa moodaa in ay ilaa xadma ay wax u kordheen oo dhawaqa iyo dhibka uu geysanayay qarax walba ay sameeyaan uu ka badan yahay. anagu khubaro ma nihin qaraxyada ah, laakiin observationka oo aan ka samaynay qaraxyada qaabkay u dhacayaan. number one, qodobka labaad oo observation ku samaynana waxay tahay sida ay oo tirada ah oo degdegta ah ay u heli karaan inay maalin xigta ama maalin inay dhowr qarax samayn karaan. iyadana waa capability cusub oo waagii horeeto aan macnaha laga record garayn jirin. marka labadaas arrimood waa arrimo cusub oo xaggooda kasoo kordhay oo u baahan de ciddii ku shaqalaya inay dul istaagto oo ay ogaato
waay u dhacday iyo sidii dee looga hortegi lahaa. waan gartay. xildhibaan daahir amiin jesow maxaad isleedahay way kordhisay awooddii ururka oo inuu awood u helo in weeraro isixiga haddana awood badan uu qaado muddo aada u gaaban gudaheed? waa mahadsan tahay waa mahadsantahay xuseen. waa sida u sheegay dadaal badan ay ku bixiyeen dabcan qoraaladooda sida uu sheegayba, laakiin nimanka la yidhaha shabaab waxooda wax qoraal lagu soo koodi kara maha. dagaalka shabaab ay soomaalida kula jirto waxay lamid yahay hooskaaga oo aada la dagaasho, sababtoo ah qof kugu midaba kugu af ah kugu muxuu timo ah muxuu jilidkaaga ah muxuu qulub ilaah baa daalacda, laakiin jismiga oo dhan ay jisiga egtihiin inaad maanta magaalada kula dhex dagaalamto jidkeeda oo ay leedahay waa qof walba waa garanayaa. mana aha wax shabaab qoraal lagu soo koodi karo waxyaabaha iyo ficilada ay sameynayeen. shabaab hadda cadaadiska ugu weyn ee ay xamar soo saareen anigu aragtideyda waxay la tahay garaacidii baadiyaha ayay sakanayaan. in kale qaraxyada xamar ay ku sameynayeen ma aha qaraxyo baadiyaha laga keeno, waa wax magaalada dhexdeeda ay ku sameeyaan garaashada iyo guryihiida uqaasa ayay ku sameeyaan oo ay farsamadaas ay ku sameeyaan. baabuur si dhaba asaga u farxa oo ay iyaga qalab kusoo cabeeyaan 3 iyo 4 ma dhamo, laakiin inta kale qaraxyada oo dhacayo ad arkaysiin waa baabuur ay shaksi awwata ay ugu dhejiyaan. waxa ay ku dhejinayeen wax yar oo loo moobiladan oo samfofka oo garabdayga dhan waayo. anay igu dhejiyeen baabuurkayga, cid walba ay ugu dhejiyeen, laakiin qarax ay soo raraan oo baabuurka tankiisa ay kusoo buuxiyeen ay ugu talagaleen in meel ay dhigaan ay ku qarxiyaan waa 12 maalmood oon sheegnay waa 3 ilaa 4 baabuur. runtii sida aad ogtahay magaalooyinkeena gobolada magaalo xigooda iyo waxaa isleeyahay degmo kamid ah degmooyinka xamar markii cabir ahaan la fiiriyo population ahaan la fiiriyo xamar waa dad muxuu ahay 3 milyan something aan isgaranaynin waayo oo ay ku dhex dhuuman karaan. laakiin markii la yiraahdo magaalada Jowhar ha laga baaro nimankan way fududaanaysaa. waa la yaqaanaa ninka shabaabka aaday kan aan aaday waa la yaqaan. sidoo kale magaalada Baydhabo ha laga raadiyaa hadii la yiraahdo waa la ogaan karaa. beledweyne ha laga raadiyaa hadii la yiraahdo waa la ogaan karaa. magaalada xamar waa magaalo mujtamac kala duwan ay degan yihiin oo ay ku dhex qarsoomi karaan, ay ku dhex dhuumaan. sababtaasa ugu wacan inay xooga soo saaraan oo xamar ay qaraxyada ka sameeyaan. laakiin haddana hay'adaha amnigu ayay ku xiran tahay inay la tacaalaan, inay aad ula tacaalaan degnaa badan shacabka Soomaaliyeedna la baraarujiyo oo muxuu la wacyigeliyo si ay dumaadka kan lagu sameynayo ay uga hortagaan. ana waxaan qabaa waxa ka hortagi kara keliya guri ku dhagan ee gurigiisa markuu ogaado xogtiisana uu soo sheego. muxuu ahay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha muxuu ahay amniga inay si dhow isula shaqeeyaan. waan gartay shacabka ay shaqeey waayeen hay'adaha amnigu suurtagal maaha in shaa Allah laga. waan kula gartay waad mahadsan tahay. haddaan u tago Professor Liibaan magaalada Muqdisho dhinaca ganacsiga haddaan u baydhno wadada Maka al-Mukarrama oo ah meesha ay inta badan qaraxyada ugu badan ay ka dhacaan. ganacsiyo badan baa ku yaala, dad dibadda ka yimid iyo dad waddanka gudihiisa sii joogay oo maalgashi ku samaystay intaba ganacsi way ku leeyihiin. sidaan ognahayna ganacsigu qayb weyn buu ka qaataa koboca dhaqaale oo sanadii u dambeeyey hay-adaha dhinaca maamulka maaliyadda caalamku ay ammaanayeen in Soomaaliya dhaqaalaheedu kor u soo kacayo. marka saameynta ay ku yeelan karaan qaraxyadani in ma aha oo keliya burburkii dhinaca amniga iyo waxbarashada burbur dhaqaalena waddanka ku yimaado intee bay laagtay? runtii waxaa isleeyahay waa la dareemi karaa magaalada Muqdisho maanta qofka jooga saameynta dhaqaale ay ku leedahay. lana haddii si guud aan u fiirino maalmaha qaraxa dhacayo
ganacsigii wuu istaagayaa, shaqooyinkii oo dhan baa istaagaya, ha noqoto isbitaallo fara badan, hataa dadkii private-ka si private hataa u ganacsan jirin ma jirayo, waxyaalo badan baa mataqaana kala go-aya. taa waxaa sii dheer wadadan hadda marka aan mukarama iyo meelahay qaraxyada kusoo noqnoqdeen, dadkii maalgashiga ku sameeyey ha noqdo dad dibadda ka yimi ama dad madowga, kolkii mar la qarxiyo oo gurigii u hagaajiyo oo dib u sameeyo, haddana mar labaad la qarxiyo, sida hadda hotel Maka Almukarama iyo hoteelada ku dhow kale oo lagu noqdo 2 jeer 3 jeer u noqdo, qofkii yani capitalkiisa raasamaalkiisa wixii ka dhan baa dhumaya, waxay noqonaysaa duruuf adag baa yani qabsanaya. dadkana ma dhiirigelinayso in ay sameeyaan. Hadda waxaa la wada ogsoon yahay magaalada Muqdisho dadka ganacsiga iyo aada u fiiriya, waxaa aada ugu yaraaday kaashki baa ku yaraaday magaaladii. nin walba kaashka wuxuu ugu yaraanayaa inta yar uu haysto mar rabo inuu mataqaanaa sameeyo, laana cabsi baa indhagood amni ahaan oo u jirtaan. lacagihii circulationka sameynaya ama dhex wareegaya ma jiraayo, waxyaalo fara badan baa isxiraya. marka maalinkaas keliya uu qaraxa dhaco ama maalinka wadooyinka la xiro, yani haddii loo qadari lahaa economically meeqa malaayiin baa khasaaraysa, aad bay u fara badan. waxaa jira dukaamo la xiray, kuwa mataqaanaa hadda yani joojiyey oo mataqaanaa yani jira. waxyaalahaas o dhan waxay tilmaamaysaa cabsida guud ee jiraya. marka amniga iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin. ugu dambeyn hadda fiiri, kolkii hadda khudaarta kasoo qaad waxa ugu fudud oo afgooya kasoo gelaysa, kolka qaraxyo dhaco oo la xiro dariiqyadii iyo wixii afgooya kasoo gelaya, khudaartii ma sii joogi karto, way khasaaray ku jiraan. waayahay, waad mahadsan tahay professor Liibaan. aan xusuusiya dhegeystayaasha in ay la socdaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno amniga kasii daraya ee magaalada Muqdisho. waxaa barnaamijka maanta marti waa Xuseen Macalin oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, ahna madaxa macadka Hilaal ee daraasaadka dhinaca amniga. waxaa kale oo marti waa xildhibaan Daahir Amiin Jesow oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, xubinna ka guddiga amniga, iyo professor Liibaan Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho. haddii aan Xuseen ku noqdo, Xuseen, siday u eg tahay amnigii dowladdu way u taaglaadahay. madaxweynuhu wuxuu kulan la qaatay madaxda ciidamada Soomaaliya. hadalkiisa waxaa laga dhansanayay inuu eedda saarayay ciidanka oo uu lahaa wixii ad aniga iga doonaysay waan idin siiyey, hase yeeshee dhinaciina kama aydan soo bixin. taasi ma waxay tilmaamaysaa in dowladda Soomaaliya ay isdhiibtay? haddii ay jawaabtu haa tahay, ma jirtaa meelo ka baxsan Soomaaliya oo loo maciinsan karo si gacan looga helo sida xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho wax looga qaban lahaa? waa mahadsan tahay. waxaan isku dayahay qeybta dambe oo su-aashaada inaan ka jawaabo. maya, suuragal maaha Soomaaliya amnigeeda cid kale oo Soomaaliya amni ka dhigi karta ma jirto. Soomaaliya amnigeeda Soomaali ayay u taallaa oo ay madaxda dalka u dhaaratay ay kow ka tahay. inta kaleo dhanna loo adeegsan karo inay qeyb ka noqdaan, laakiin iyagu door cad ma laha. doorka oo yani sharciyeysan oo muddaysan waxaa iskale madaxda dalka. marka haddii dad shisheeya ay noqotona waa markii aan anagu hawlaheena isku dubaridano ayay kaalmo noqon karaan. laakiin dalalka adduunka la isku dayay in xoog wax looga qabto oo dhan waa lagu wada fashilmay. ciddii iyadu hawlaheedi gaar u qabsatayna way nabadeysay dalalkooda. marka su-aasha qeybta dambe horta waa inaan very clear ka noqono. Soomaali haddaan nahay, Soomaaliya nabad ka dhigi karta, laakiin ajnabi waa la kaashan karaa markii aan anagu nabadda aan hogaaminayno. qodobka su-aashaada qeybta hore oo ahayd in muxuu ahaa madaxweynuhu uu maaragtay ciidamadii ku kaarta baxay, arrintaas ciidanka ma qabato. ciidanka shaqadoodu waa shaqo iska kooban. ka adkaanta shabaab iyaga mas-uuliyaddeeda ma laha. iyagu inay la diriraan, inay maaragtay howlo loo cayimay ay qabtaan ayay leeyihiin. laakiin dagaalka shabaab lagula jiro dagaal caskari ah keliya ma aha, waa dagaal furumo badan leh oo u baahan in ay dawladdu meel kasta ka dhuujiso
dagaalkaasu dagaal dhamaystiran u ahaado. marka madaxweynuhu waxaa qumanayd in uu hadduu eedeynayo ku eedeeyo wixii gaadisa oo ciidanka ku aadayay dagaalkaas, laakiin labadii sano uu qabtay isaga ayaa iyaga ka horna baarlamaanka ka hor ballamay oo xildhibaana hadda nala fadhiya oo markhaati noo noqon kara. laakiin muhiimaddu waxay tahay in la eedeeyaba waxaa ka muhiimsan in mas-uuliyaadka la qaato, oo haddii gaadis yimidna waa gaadiska in la sheegto ayaa guusha kusoo dhawaan kartaa. laakiin gaadiska haddii lasii inkiro waxaan umalaynaya in aanan jidkii guusha aan ballahayninba. waan gartay. xildhibaan daahir amiin jesow, guddiga difaaca ee baarlamaanka aad ka tirsan tahay, haddii aad intii aad soo joogteen labadii sanaad aragteen in xaaladii ayna kasoo horeyneynin cadaadiska aad saarteen dawladda iyo ilaa iyo imika waxay idinku jawaabeen haddaad nala wadaagtid. waa mahadsantahay Sander. horta marka ugu horeysa aniga ma aragna madaxweynaha oo ku eedeynayo ciidamada, amaawiir unbuu madaxweynaha ka hadlay iyo sida hawsha u soconayso iyo qof walba waajibka saaran ayuu ka hadlay. meelas ciidan muxuu ahay ku eedeynayo aniga maan arag. wadadayshana waan joogay hadda meel hadda si gaar ah ciidanka looga dhaliilayo. qof walba waajibkiisa unbaa madaxweynaha ka hadlayo. tan kale furitaanka baarlamaanka madaxweynuhu waajib saarno dastuuriga unbuu gudinayo. midda kale dawladda ma isdhiid su-aashaadi hadda aan dib ugu noqdo oo adseenaydi. dawladda hadaad maqasho waa shacabka soomaaliyeed iyo hay-adahooda oo iswata ayaa dawlad la yihahdaa. marka shacabka soomaaliyeed iyo hay-adahooda golayaashoodana kuwa isdhiibaayo ma aha, mana isdhiibi doonaan. ilaahana kama galna inay isdhiibaan, waayo dad isdhiib waa dad gumaysi ogolaaday. marka waxaan leeyahay shabaab waa laga adkaanaya, dooray noqotaba ha noqotee. siduu xuseen sheegana gacmaha soomaaliya looga adkaanaya, gacmaha jaanib looguma adkaan doono. waxa keliya ee muhiimka ah waxa weye in qof kasta oo soomaali ah ama shacab ha ahaado ama muxuu ahaay hay-adaha amniga ha noqdaan ama mas-uuliyiin kale ha noqdaan, in qof walba waajibka isaga meesha ka saaran uu ka xoojiyo. hay-adaha iyo shacabkana waa inay isla shaqeeyaan. hadalkeedii hore ay kamid ahayd. xildhibaan, guddigii difaacaad ka mid tahay, ma la xisaabtantaan dawladda? ma la xisaabtantaan? ma tidhaahdaan maxay wax isu bedeli layihin? aniga guddiga difaaca kama midii laba guddi ayaa jira. guddi gaashaandhiga iyo difaaca qaabilsan iyo guddi arrimaha gudaha iyo amniga qaabilsan oo macnaheeda uu yahay kuuna wuxuu hoos tagaa wasaaradda gaashaandhiga iyo hay-adahaas ciidanka iyo waxaas hoos tagaa. midna waxaa weeye nabad sugid, boliis iyo wasaaradda arrimaha gudaha. xildhibaan, guddigeed ka tirsan tahay adigu? aniga guddiga arrimaha gudaha iyo amnigaan ka tirsana. awood ma u leedihiin in wixii amni ku saabsan aada xukuumadda gaar ahaan qeybta amniga qaabilsan aada kala xisaabtantaan? laba wasaaradood ayaan la xisaabtan leenahay. labadana si fiixanan uga shaqeynaa, waana isla xisaabtanaa, waana isla xisaabtami doonaa intaan maandaysa. way wax bal cad oo aan ahayn hadalkan guude halkudhiga u eg oo aad isku tidhaahdeen oo aad wax isbedela ku samayseen haddaad nala wadaagtid? waa mahadsan tahay. hay-adaha amniga sidaad la socotay maalin dhawaatay isbedel badanaa lagu sameeyey. saldhigyada saraakiil daayiraa loo magacaabay. muxuu ahaaye nabadsuudi sidoo kale. waxaad moodaa hadda in dardargelin dhab ah ay madaxda ciidamada ay la yimaadeen. marka waa arkaynaa wixii kasoo naasacdaado. laakiin muhiim waxaa qof meel loo magacaabay keligii ammaan ma sugi karo haddii ayna shacabka la shaqaynin. waan gartay. waayo professor liban, hadalka waxaan soo gaarnay gebagabadii. hadalka adiga qeybtaada tii u dambeysay, hadalkii ugu dambeeyay aan ku siiyo, maxaad ugu dambeyn ka odhan lahayd waxa socda? runtii waxaan soran lahaa guud ahaan waa arrin runtii fitno guud ama musiibo guud oo hadda magaalada muqdisho si gaara ay ugu jirto.
waxa aniga aan ku raacsanahay ah in shacabka Soomaaliyeed iyo dadka iyo dawladda Soomaaliyeed wax u yaalo wey wax oo factor oo external ama dibadda ah wax ay ka qaban karaan hadda ma jiro laakiin waxaan oran lahaa inay u baahan tahay in laga fiiriyo dhinacyo badan waxaa dhici karta inay arrimo badan isbiirsadeen oo ciidankii cabaadaya iyo xalintooda lagu jiro iyo duruufo badan lagu jiro iyo fahmiga siyaasadeed iyo xasiloonida maamul goboleedyada iyo dawladda waxyaalahan oo dhan oo isbiirsaday way dhici kartaa qayb inay ka noqoto qayb ka noqoto ta kale waxaa iyadana muhiima habka loola dhaqmayo weliba shacabka bulshada yani in iyagana mataqaana yani aada loo eego marka kolkii hadda wax dhacaan mararka qaarkood dadkii rabaa inay meydadkooda iyo dhaawacooda ay qaataan ayay ku adkaataa inay barihii gaaraan markaasa dadka qaarkood waxaa dhacda inay dhaawacooda ama laga gaari karay inuu u noqdo marka waxa weye systemka loo maamulayo iyadana yani waxay u baahan tahay dib arrintaa loo fiiriyo waxyaalahan caafimaadka iyo nafsiga ay keenaysana in aada loo eego aniga waxaan isleeyahay hadday bulshada rayidka codkeedana in la maqlo oo la isku dayo sidii xasiloonida loogu soo celin lahaa dadkana qulubta loogu dejin lahaa leanna dadka runtii way niyadooda way kacaysaa markay arkaan qaraxyo isdaba socda waxa ugu muhiimsan waxa weeye xasilooni siyaasadeed dib u heshiisiin oo yani iyo kalsooni oo la abuuro iyadoon kalsooni la abuurin ma dhici karto inay dadku wada shaqeeyaan ma dhici karto inay waxaa ka faa'iidaysan karaa intaas oo qaybooda ka faa'iidaysan kara ma aha kaliya hal jiha hooyin badan baa ka faa'iidaysan kara markuu jawiga xase u kacsan yahay waan gartay xuseen adiga ugu dambeyntii ereyga ugu dambeed odhan lahayd muxuu yahay waa mahadsan tahay waxay ila tahay amniga yani magaalada gaar ahaan waa sida lagu celceliyey way u baahan tahay in ay shacabku qeyb ka noqdaan laakiin waxaan umalaynayaa arrintaas in ay tahay kelimad sax ah laakiin meel khalada la gelinayo ammaanada oo amniga magaalada iyo dalka waxaa qaaday madaxda dalku marka waa inay qorshe iyo siyaasad hufan oo ay shacabku marka qeyb ka noqon karaan waa in intii lala yimaado loo soo bandhigo wax la fahmi karo oo laga shaqayn karo oo doorar kala cadcad ah isla xisaabtan jiro uu jiro maaragtay sarreynta sharciga dadku in ay aada ugu wada qanacsan yihiin in sharcigu dadka ay u siman yihiin iyadoo intaas aanan la helin haddii lagu celceliyo maaragtay shacabka ha shaqeeyo shacabku amniga ka shaqeeyo waxaan isleeyahay waa kelimad sax ah oo aan meesheedii lahayn yaanan shacabka lasii dulminin iyaga oo hadda ay dhibka hadda u haysto dulum kale yaan loogu darin oo ah amnigiina ka shaqaysto amnigii kama shaqayn karaan arrimahooda shaksigaa ayay mas-uuliyaad ka yihiin subaxdii usoo kacaan habeenkiina inay guryahooda uhoydaan ay rabaan iyagoo amni ah intaas qofkii u ballan qaaday in uu amni u keenayo ayaa laga rabaa in ay u sugnaato inay subaxdii soo kacaan habeenkiina ay hoyadaan iyagoo amni ah waan gartay ugu dambeyn xildhibaan daahir amiin jesow aan ku siiyo kelimada u dambaysa ku saabsan xaggee halkan looga dhaqaaqayaa sidee loo yarayn karaa dhibtan dhacaysa mahadsanid sandheer waxa weye ma aha in shacabka soomaaliyeed lagu eedeynaayo amaawiir la faraayo waayo oo qof kasta oo soomaaliya oo waajib loogu dhigaayo in amniga ka qayb qaato waxaa muhiim ah in qof walba uu ogaado dhib kastan inuusan suuleyn ilaa asaga uu ka qayb qaata mooyaane dawladda iyo madaxda dalka ma aha inay amaawiir bixinin oo ah ay samayn waaynin bolansigii amniga lagu sugi lahay inay samayn waaynin ma way sameeyeen laakiin waxaa meesha taalla waa fulintana waxay ku xiran tahay dad isla wada shaqeeyo oo shacabkooda iyo hay-adahooda amniga ay isla shaqeeyaan
oo xuraan iyo xogba la heli karo ayay ku xiran tahay. aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin dhegaystayaal waxaa intaas aan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti iigu ahaayeen xuseen macalin maxamuud sheekh cali waa madaxa macadka daraasaadka hiiraale magaalada muqdisho, profesor liibaan ciise oo baraka ah jaamacadda muqdisho, iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.